madaxweynaha Soomaaliya noo soo fur qaadka raggu qaadka noo soo fur habeenkii raggu waa caweeya waa ku caweeya qaadka raggu moogta dumarka seexda ragga waxa loogu talagalay inuu caweeyo sheekeeyo hadlo habeenkii oo dhan caweeyo subaxina inuu la qaadka laabtay habeenkii dumarka dowladda dalka Kenya ayaa laba jibaartay qiimaha qaadka ay keento dowladda Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa shaacisay qiimo kordhin ay ku sameysay qaadka miraha ay u soo dhoofiso Soomaaliya xilli dhowrkii maalmood la soo dhaafay aan la iibkeenin gudaha Soomaaliya. Kenya ayaa qiimo kordhin laba jibaar ah ka dhigtay qaadka ay iibkeento Soomaaliya iyadoo kiiladii ka dhigtay lacag dhan 1300 oo shilinka dalka Kenya u dhiganta $10 halka markii hore kiilada ahayd 700 oo shilinka dalkaasi ay u dhigantay $5.43. Talabadan Kenya ayaa qiimo kordhinta ay ku sameysay qaadka ay iibkiisa Soomaaliya aysan weli wax warar ka soo saarin ganacsatada Soomaaliya ee dalkaasi ka keentay qaadka miraha ay culays ku noqon doono go'aankan ay ku dhawaaqday dowladda Kenya. Ugu dambeyntii dowladda Kenya ayaa faa'iido ugu badan ku qabta qaadka miraha oo ka baxa beeraha dalkeeda ka soo dhoofisa Soomaaliya waxaan dhaqaalaha ka soo gala Soomaaliya u qayb noqday inuu sare u kaco miisaaniyadda xukuumadda Nairobi.